وهاجا dhageystayaal mar kale maalin wanaagsan sidaad maqlayseen barnaamijka dooda jimcaha ee maanta ee waxay la tahay waxaanu ku eegi doonaa sanadkan cusub ee 2021 ee wax laga fili karo siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika iyo waliba sidoo kale tabariga dhaxayna oo eegi doono arrimaha doorashooyinka ee ka taagan gobolka hadii ahaan lahayd Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo waliba sidoo kale ammaanka iyo xasiloonida wadanka Soomaaliya. Barnaamijku waxa martiin ugu ah khubaro kala duwan oo kala joogan Nairobi iyo waliba sidoo kale wadanka Qatar. waxana martida barnaamijka naga qayb galaysa kamid ah Professor Cabdihaab Sheekh Cabdisamad waxa uu ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika. Nairobi ayuu ku sugan yahay oo qadka telefoonka ayuu kaga jira. Dr. Ibrahim Faarax Bulsiriid isna qadka telefoonka ayuu kaga jira Nairobi iyo waliba sidoo kale Dr. Afeere Cilmi oo wax ka bara jaamacadda Duxa ee dalka Qatar isla markaana ku sugan magaalada Duxa ee wadankaasi. Dhamaantiin soo dhawaada. وأنا بشير شكرا. وأنا waa tahay aad ma hasan tahay Bulsiriid adag ku horeynaya inkastoo guud ahaan inuu eegi doono gobolka haddana waxaanu ku bilaabaynaa doorashooyinka la filayo sanadkan ay ka dhacaan Soomaaliya. Imika halkay xaaladdu taagan tahay maxaa la fiilka ay kula tahay sanadkan cusub halkeese looga dhaqaaqi karaa bay kula tahay meesha imika la taagan yahay. بسم الله الرحمن الرحيم. بشير هذا ما كنت هاي صاحبتي دكتور أفيري بشير عبد الوهابنا والسلام عليكم جودان شعبوينها الصومالية dhamaanteena sanad cusub oo kii Soomaaliya abaan ilaahay idinka wada rajaynaya intaas kadib waxaan ka wada warqabnaa in doorashooyinka uu jiray isku day xukuumadda ay rabteen wax ku boobto waliba si cad oo aan qarsoodi lahayn iyo Bulsiriid arinta hadda ma xaqiijin karna laakiin kulli waa fikirkaaga aan dhaho waxba hataa fikirkayga dhihin aan dhaho waxa jirta eedayna in xukuumaddu ay rabto inay wax boobto waliba si cad iyo eedayna inaanu jirin mucaarad xataa u dhigmo mucaaradnimo oo laftigooda xaaba ah bulshada rayidka kaalinteedii kabtay oo aanu istaagin markii la rabay in xukuumadii dadka la isu soo dhaweeyo wixii la qaban jiray aan qabanin beel caalmoona ilaa ay hadda la garanaynin kaalinteedii marka laga yimaado inay mar walba leedahay hal la wada hadlo iyo laakiin inay khasab noqon doonto sida muuqata haddii ilaahay awood ilay ogolaado in heshiiskii kala hore 2 ilaa 3 jeer dhowr mareeb lagu soo heshiiyey oo Muqdisho lagu gabagabay ilaa hadda Kismaayo garow ay ka taagan yihiin inay khasab tahay in isu soo dhaweyn iyo kala dabqaadis inta la isku khasbo diblomaasiyad qarsoon iyo isu dumid xoog la saaro inay khasab tahay in doorashooyin la isla ogol yahay waqtigoodana ku dhaca ama xataa xilli aan badnayn oo farsamo la yara daahiyo in dalka ay ka dhacdo marka ma jirto kurbo weyn oo ah inaanay doorasho dhici karin loo maleeyo dadka ay qurbo badan u haysaan igama hayso way dhici doonaan si qurux badan way ku dhici doonaan isbedel lagu diirsadaana dhici doono dadka oo dhan ay khusayso ay qayb ka yihiin insha Allah waad maasan tahay Afeere waad maqlaysay maxay kula tahay adigu in sanadkan laga fili karo ismarinwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya waa maadsan tahay waana salaamaya martida kale ayagana qayb ka ah Ibrahim iyo Cabdiwahaab runtii arinta waxaan anigu hadda la qabaa Dr. Ibrahim waxaan la qabaa inaan waxa hadda la isku hayaa aysan wax hadda saa u sii weynahayn mabaadi'da waa laga heshiiyey baarlamaanku waa ansixiyey waxa kaliya oo dhiman in laga heshiiyo sida mabaadi'da loo hirgelinayo waxa hadda outstanding oo hadda banaanka yaalo ugu daran waxa waaye cidda garsooreysa iyo habraacyada labadaas ugu daran marka in aniga laga heshiin wayn karo in garsoor la isla ogol yahay iyo habraacyo loo siman yahay in la helo ilama dhibadna caadi waa iska qola meesha joogta inay hungureyso inay maaragtay wax boobto qolada kale oo rabta meesha inay timaadaan inay kula dhagto waa iska wax maaragtay yani waa wax iska caadiya dheeraad nin dooniyo nin ku dhaga xaqiiso dhacsanay baa jiro leeyahay bari hore marka inta dawladda oo dhan jirtaba markasta koox markaas meesha joogto wax boobays iyo koox ka yuraysanayso leeyahay maya yeelina way jiraysaa marka laakiin wax hadda adag meesha ma yaalaan oo hor istaaga in aan doorasho dhicin laakiin waxa halistu waxay iman doontaa in markii ay qola bahasha xariga aad u jiido xariga si aad u togto markaas dhiba iman kara laakiin inta ka horeysa hadda anigu ma arko runtii dhib weyn ma arko oo aan laga gudbi karin waxa intoodii badneed waa soo dhamaadeen labada qodobna insha Allah
waana laba qodob oo gar oo dawladda gar loogu leeyahay oo ah cidda noo garsooreysay iyo cidda maaragtay habka aan doorashada ku samaysanayno dadban anigu waxaan isleeyahay dawladda hadda meelay ka marta male waa inay ka gorgortantaa arrimahaas way aad u mahadsan tahay cabdiwahaab waad maqlaysa labada dhinac adigu ma isleedahay dhinacyada isku haya siyaasadda ee arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya waxay ka tageen tanaasulkii runtii hadda horta waan salaamayaa saaxiibaday maartay doctor Ibrahim iyo doctor Fiere runtii sawa yani aad baan salaamayaa iyo dhammaan dadka dhegeysanayaba horta waqtiga waa yar yahay 37 maalmood ka hartay xilligii meelaha yani madaxweynaha isbarku yeelan lahaa waxa moodaa runtii in yani nimankan mucaaradka ay nimankan dawladda labadaba ay isu tanaasulin hadda muuqata laakiin waxa hadda haray oo sida uu u sheegay doctor Fiere wax weyn ma aha wax yani dad Soomaaliyeed inta isku qabsadaan wali yani كريمته مدة ومعنا وحاول دل كان إنه جميل لغة ولا جلي وهذا عرض أبو ميمسن قلب كان يعني إذا كان قضية له إيو قد يقدر يشتغل البدلة إيو واحد لجي له وفود كإيمان يسا قبل ذا وقوي عدة ما منيسة واحد وينهم أنا يعني حتى مش إيجا مقدم مجرى وكورة عشان لبضن ولا هيدا لكن مش وحيا لا استنازل حمو إيه قام حماة الله أنت بدنا رنتي وحن مدة رنتي يعني حاجة يعني معتي يعني كومبرمايز يعني دولد وحمد واحد بدنا إني تنازل شيء رنتي بكرة تلاقي هذا لكن معارض كان مدة رنتي إني تنازلين بكتة وحافي عن لمن كان دل كان أيجا أسكره أيجا بريو جامين أيو لأن يعني مدحينا بريس مش من جوجا أيو لكن حلو باي رنتي إني صون لما يموقتو إن يعني قان قارنما أي موقته إني أنا تنازل رأسي ماشي وكدعة ما حيالي مدحينا حبدا رنتي يعني يدعو برلمانك وحال عود هالقفو مريي وبرلمانك مدحينا وصحيحي أي أنا من كان سياسيين قبلض يعني مدحنا قبلض أنا يدهان برلمات عن في السنة أولو سمرد كو يلاب يصدح يدعى هذه إلا مركز عيارت فينارها لو وقفتي مقشل وقفتي وعشان يتوقف بالصوت صاري عشان يتوقف بالصوت صاري ولسكوها فقي أي هذنا بدو مشروع عندنا وحي هذنا وحيد هنا شان قلوا كم هذا أيام ضد كتبنا مركا وحافي عن مركا لكن وحافي عن المركا كذا بحيا وحاولنا سنيد يعني إن إكول أيجنا أي موجيان إن التنازل السميان وحال سقوها يستوح آدي أدو يروى وسيد دكتور فيرو الشاقي دكتور إبراهيم الشاقي وحيرويان وحير مركز سقوها يستا إن أنا الله بنبوري وعالم كصوبة حق الله معنا يعني قربنا الطمو وحكاونا أكسن إن في الصومالي لماه ولا لماه لماه الله وضع الله وحير لقى قدوه مركا قدام دور الشقب صدن زبري هارتي وقت لما هي أقل كسر ربالين لدورته أقل كبرلمان كربالين لدورته إن يعني لقوحوا ما يشتخصي مرفدي اللي فرماجة وحي يعني تعامل رسولنا يستطيع دون يمشي وقصدي وعنو عاسف إن لسكينا اللي ولا في عنه وحو لانجوج في عنه الاستعماله من كان ماشي من جوغايو من الجوغ دونه وحويا لكن ومدحوين قرن كوي إن الاحترام ورنتي لو احترام منصبك وهينا هذه وفي عنه واي أدبض ما سنتي عبد الوهاب دكتور أفياري هدي أنديب كوكو صلابت هذيك وحل السويدين كره هدي سقب قبسي وديرادو دنعيدنا أنا موجين تنازل مدحلات كهيدها يمكن جيران ودماادو ما حد يكره والله horta dhinacna waa legal dhinacna waa de waxa sharciga hadda la sheegayo hadii dadku ay yiraahdaan anagu ma raacayno de waa iska arin kale laakiin legally hay'adaha jooga oo baasi wadaya inta hay'ada kale ay ka bedelayaan yani hadda baarlamaankuna intaas waa sameeyay mana u malaynayo inay mushkil ka jirto waxa kaliya oo loo baahan yahay waxa waaye in ay shaqo bilaabato waxa oga cabsidu imaanaysaa inay shaqo bilaaban laakiin haddii shaqo bilaabato oo horumar hadda laga sameeyo maaragtay arrimahan hadda la isku haayo waan hore usoo sheegnay oo ay ugu daran tahay arrinta guddiga xataa arrinta Somaliland waxay hoos imaanaysaa la imaanaysaa yani madaxda ka soo galaysa waxay hoos imaanaysaa arrinta guddiga haddii guddiga laga heshiiyo oo guddi oo guurtiya oo dhaxdhaxaada la sameeyo waxa kale intooda badan waa xalismayaan marka hadii taas la helana in hore loo galo oo shaqada marka sanadkaba la doorto waa sahlan tahay ilaa sanadka hadda dadka doora laha way joogan waa la yaqaana baarlamaanada gobolada ay joogan shaqa socota meesha runtii yani kalsooni daradu ka imaanaysa waxa waaye doorashooyinkii dawladdu ay maamushay ka dhacay Baydhabo iyo maxaan ku iraahdaa
jowhar iyo dhuusamareeb ayaa waxaa laga arkay meeshaas inay horeyna dee ayaan dhaweydna waaba tii shalay meer musdaraad uu ka bixinayay cudurdaarka mahdi dawladdu inay rabto inay wax boobtaa ka soo baxday arrintaas marka kalsooni darrada ka dhalatay bahasha aad bay cirka ugu sii shareertay marka waxaan u malaynayaa aniga haddii guddiga go-aan laga gaaro oo guddi loo qaateena la keeno soomaalidana way ka buuxaan culumay qabtaa bulsho rayaday qabaan dad akhyaaro ahlulxalli walcaqdiyahay qabaan dadkaas haddii dawladdu keento cid ka diidaysa ma laha laakiin cid ka yeelaysa ma laha shaqaalahooda iyo qaraabadooda iyo asxaabtooda ayaa garsooraya cid ka yeelaysa ma laha waana runtii waana waxaan fiicnayn oon caqligana ku fiicnayn sharcigana ku fiicnayn marka anigu waxaan isleeyahay khayraan filaynaa laakiin dee waa inay dawladdu fahamtaa xilli laysqaldi karo ama laysdiri karo ama laysxoogi karo ma joogto hadda soomaalidu yahay wixii caqliga common sensiga ah ha ka raacdo wixii maslaxada ah ha ka raacdo waaya inkastoo dawladdu ay afyara beenisay eedamahaas oo dhan oo marar hore aad u beenisay waayahay waxaan siinayaa bursaliid maxay kula tahay adigu aad maqlaysa dhinacyada bashir aada ugama fogi doctorka iyo professorka aniga waxaan kusii dari lahaa kaalin kale oo ah in soomaaliya ay ku jirto xilli ay hal cabaaraba kasoo kabanaysa iyo colaad sokeeye ayna kusoo jirtay 20 sano oo daldhis iyo nabadayn dadaalo aan loo meeldayin oo beesha caalamku ay in badan ama maalgelinaysay dhinac lacageed dhinac farsamo iyo talo ama ay xataa qasbayeen oo cadaadis diblomaasiyad ay kooxaha kala saari jireen xukuumaddii marka xasan khayre ee 3 sano barkii tegey waxay wax weyn ka bilowday in dareenkii wadaniyada la soo celiyo xukuumadduna ay bilowdo in ay la soo noqoto qadiyaadkii dawladnimada oo la isku dayo bal in shabadii dawladda la isticmaalo wax la xoojiyo haddana roob la sii wado laakiin taas macnaheeda ma ahan in xukuumadda waxay rabtaa ay samayn karto waxay ahayd in kugusan la dhaho oo la isu furo oo tanasulaad badan la sameeyo waayo isla halkaas bursaliid isla halka wax badan oo khalada baa jira oo maamulada la jira si gaara garowe kismaayo kale laakiin waxaa 10 jeer ka khaldan xukuumadda heer qaran loo idmaday inay wax qabato oo la rabo inay gacan celin badan iyo tusaaleyn iyo turid iyo tanasulaad ay la simaan wax meesha ka baxsan kaalintii bulshada rayidka oo ama gobolaysatay oo qof walba gobolka uu joogo uu u xaqiijiyo eexiyo ama kuwii heer qaran looga fadhiyay wax isu soo dhaweeyaan oo noqotay in uu kala dhuuntaan ama marka qaarkood ay caadifad reer iyo maamul iyo gobol iyo deegaan ay gasho marka waxaad moodaa in waxa dhacaya min raas Kamboni ilaa raas Aseer loo hayo Zeyla jamhuuriyadii waxa maanta ka dhacaya markaa fiirisid oo maamul u dul istaagtid heer qaran heer gore heer maamul kale oo gool istaagsan kulli markaa fiirisid Bashiro iyo doctor professorkana ay hubin rajayn inay ugu raaci doonaan waxa socda maantay aan loo meeldayn waxa aflagaada ku yihiin ضمير هي عقل قفك الصومالي وانا حل ربي لو ان ضماس كانت ما مثلا عام كان لغا شقيو قرح uga min culayska jira waaya bursaliid isla hadalkaaga hore aan dib ugu laabtay ahaa in dhinacyadii ay haydaan arrintan ay xaliyaan ay gabeen doorkoodii marka mar haddii xilligan la isla soo gaaray ismarawaaga dhanka doorashada iyo arrimaha siyaasaddan ay taagan tahay yay tahay marka xilligan oo kale inay wax xaliyaan ama dib loogu laabto Soomaalida waxaa la rabaa hadda kale inay ka baxaan odayaasha dhaqanka la rabaa inay ka baxaan in la laaluushi karo in la kala xaglisan karo ay maamulo iyo reero kala raaci karaan in qofka tunka roonay maanta lacagta bixin kara wax xiri kara ay ka baqaan ama ay wax ka raadsadaan ay ka koraan oo maanta kale dalku yimaado bulshada rayidka qaybaheeda cad ee heer qaran ee aan maamul iyo reer inana geli karin ee la aqoonsan la xurmeeyo maanta kale ay ka baxaan meesha ay ku jiraan ay istaagaan in xukuumaddu ay ku baraarugto in la weydiin doono waxay maanta sameeyaan bashir marna marmarsiyo ma aan dhamaystiro marna marmarsiyo ma noqon karto 4 sano ka hor xukuumadii joogtay baa 6 bilood daahday ayadaa wax khaladay ayadaa xafiisyadii kuwii u joogay guddi ka dhigay aniga ila yaabin marna marmarsiyo ma noqon karto waxay ahayd qof iyo cod in la aado way suurtageli weyday doorasho dadban oo tii hore wax yar ka buuran oo cufan hal la sameeyo lagu heshiiyo waa in heshiiskii markaa raacyadiina la meel maraya laga heshiiyo garsoorkii laga heshiiya wax Soomaali ay wada leedahay hatta hadaa wax xadigi qof siyaasi ugama fadhino xor iyo xalaal laakiin si nabad oo qurux badan wax la wada arkayo
oo la wada leeyihiin oo isbedel kala sameynaya isbedel dadka lagu sameynayo ay qayb ka yihiin uu noqdo wax qola gaar ah isbedelaysa waad mahadsan tahay cabdiwahaab mar haddii aynu sii ballaarino barnaamijka soomaaliya oo keliya maahan dalka sanadkan la filayo doorashooyinka inay ka dhacaan sidoo kale waxaa la filaya in doorashooyin ay ka dhacaan wadamada gobolka sida wadanka Ethiopia ama Uganda ama Djibouti ba marka kuwa iyagu ka waran maxay uga dhigan tahay amniga iyo xasiloonida gobolka horta wadanka Ethiopia June ayaa lagu wadaa inay doorasho ka dhacdo oo sidoo ku dhawaaqay yani prime minister dalka kal hore waxay ahayd in September la qabtay ahayd laakiin ma dhicin arrintan coronavirus ku eedeeyeen inuu dib u dhigay inkastoo dagaalkii Tigray uu soo dhaxgalay oo runtii dagaalkaas oo runtii aad iyo aad u saameeyay gobolka u saameeyay taa marka waxay keentay marka inay dhahaan marka ku dhawaaqaan in June ay qabanayaan doorashooyinka laakiin su'aasha inta isweydiinta badan waxa weeyaan dagaalkii Tigray wuu socdaa weli madaxda Tigray waxa ilaa hadda wax la qabtay ma laha magaalooyinka weynaa ee dowladda qabsatay ilaa hadda yani wax yani dad madax banaan oo ka soo warramay ilaa hadda lama hayo marka Tigrayna waa gobol ka mid ah Ethiopia oo doorashada way saameynaysaa xukuumaddii ay doorteenna waa la laalay oo dowladdu way laashay xukuumadda hore ay keentay waxaa moodaa runtii dadka qowmiyadaha ku nool Ethiopia inay si kala dhaqaaqayaan oo amxaartii iyo oromada ayagana xalkooda weli aan la xalinin oo runtii xurguf badan ay ka dhexayso soomaalida iyo inay dhexdhexaad yihiin aan moodaa runtii oo yani ciddii markaa ku guulaysto ay la shaqayn karayaan marka doorashada soo socoto waxa weeyaan waxay u tahay caabi waxay u tahay yani geeri iyo nolol ama mid wuxuu Ethiopia ku midayn lahayd noqonaysaa mid Ethiopia ku kala tagi lahayd noqonaysaa markii la gaaro June xilliga isaga ah ka war marka isla gobolkaasi aad soo hadal qaaday ee Tigray bal ka waran ayagu maxay ka bedeli kartaa xiisadii wadanka ka tagnay waxay ku xiran tahay sida uu soo afjaray yani waxa weeyaan dagaalka imika Tigray ka jira ayna Tigray hadduu soo afjari waayo June tan la gaarin soo afjari waayo oo dagaalku uu daba dheeraado waxay saameyn ku keeni kartaa wadanka Ethiopia dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo mujtamac ahaanba dhibaato ay ku keeni karaysaa dagaalkan hadduu daba dheeraado weeyaan marka waxay noqon kartaa Ethiopia inay noqoto tusacbo ay marka kataa waxa weeyaan yani abi wuxuu ku qasban yahay ama hal heshiyo oo macnaha heshiis hala galo ama military ha u adkaado inuu soo afjira dagaalkan inta la gaaray xilliga doorashada ka hor laakiin hadday ku gaarto doorashada ku gaarto macnaheedu waxa weeyaan yani Ethiopia runtii yani waxa weeyaan dagaal sokeeyay inay bilowdaan halisa ayadoo runtii waxa weeye qowmiyadaha kala duwan weli ay kala shakisan yihiin oo runtii yani kalsooni badan oo shayna ka muuqanin waaya waxyaabaha kale gobolka ka jira sanadkan cusubna laga dhowr sugay waxa kamid ah bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya inkastoo marar badan la kordhiyay mandatka ama hawsha ciidamadaasi marka ma laga yaabaa in sanadkan ama mustaqbalka dhowba laga maarmi karo ciidamada AMISOM su'aashan waxaan u deenayaa afyare waad mahadsantahay horta guud ahaan gobolka marka la fiiriyo Soomaaliya xaalkeedu gaar yahay marka laga reebo inta kale waxaa xukuma xisbiyo oo muddo haystay oo muddadaas dheer yani dadka shakhsiyaadka xisbiyada hogaaminaya isbedbedelaan laakiin xisbigii markaa meesha haysta unbaa haysta marka trendigaas hadda xisbiyadaasi inay meesha sii joogaan ah waxaad moodaa inuu sii xoogeysanayo oo ma soo dabcayo oo xisbiyada mucaaradka ah ee ka baxsan xisbigaasi inay madax noqdaan way adag tahay xitaa qofkii marka oo political ambition leh ama siyaasadda dan kale ama Ethiopia ama meelaha kaleetaba aad baa waxa u adag inay maaragtay banaanka ka yimaadaan abiya marka saasuu ku yimid haddana de xisbigii meesha keenay ayuuba hal xisbi ka sii dhigay oo progressive party wax la yidhahda marka waxaan isleeyahay anigu hadda dhinacan authoritarianismka gobolka ka jira waa un sii badan doonaa mooyaane ma soo yaraan doono Soomaaliya xaaladeedu waa iska xaalad gaara oo iyadu marna xataa cid hadda authoritarian noqon karta amaba joogtaba oo situationkeedu waa waxa la isla raadinayaa wixii dib in loo soo marka arrinta kulley intaasaan anigu hadda ka dhihi lahaa arrinta isla wadamadaas sheegtay ciidamada AMISOM wadamada Soomaaliya ugu yaboohay ayay doorasho ka dhacaysaa waxaa kamid ah Djibouti Ethiopia iyo Uganda marka si un ma laga yaabaa doorashooyinkaasi wadamadaasi ka dhacay inay si un u saameyn karto ciidamada AMISOM iyo xasiloonida wadanka amniga oo wadanka Soomaaliya ciidamada AMISOM band-aid oo xoogaa ka ballaaran ay ku joogaan
oo u baahan de haddii xataa dib loogu noqonayo internationally commitmentyadii jiray oo dhan in dib loogu noqdo marka anigu umalayn maayo in xaaladii keentay ay meesha ka baxday oo hadda sida suudaan oo kale laleeyahay ciidamadaha iska baxaan oo ciidamadii nabad ilaalinta meeshoodii ciidamada suudaana galaya waa laga heshiiyey soomaalidu weli meesha ma gaarsiisna oo dowladeeda iyo kalsoonideedaba wiil soomaaliyeed oo qorisito oo dagaalamo waa la helayaa laakiin dowladnimadu waxay ku jirtaa wax intaa ka badan oo maaragtay ah kalsoonidii weli way kala dhiman tahay institutionadiina way kala dhiman yihiin marka Soomaaliya weli waa dawlad ku meel gaar ah waxoodu waa ku meel gaar oo hadda shirkan garowa ka socda ku meel gaarnimada si looga baxaa marka la leeyahay wax kale ma ahane doorasho qof iyo codana ma dhicin dastuurkuna waa provisional ciidankuna waa AMISOM wixii dhamaayna waa la isku haystaa every aspect of it markaad eegto legalistic ma aha in loo eego nuxurka marka laga eego Soomaaliya waxeedu waa wax hadda aanayba ka maarminba AMISOM adigu hadda maanta qiyaas haddii AMISOM aysan xamar joogin siyaasaduna sidaan u cakiran tahay waxaa dhici karta in mar hore dhibaato ay kala gaari lahayd factioniska iyo waxa meelaha kala ordaya marka AMISOM waa stabilizing force waa marka la fiiriyo hadda meesha sida loo joogo ani marka waxaan aaminsanahay in laga maarmo waxay u baahan tahay in institutionkii la dhiso iyo in kalsoonidii timaado labadaas isla socota waaye haddaan la isku kalsooneyn waxaad akhrisaba waa laga tegayaa marka anu waxaan isleeyahay arrinta ayada lagama maarmo wayna sii joogaysaa haddii qola baxdana qola kale un baa soo bedeli doonta inta Soomaalidu ay ka samaysanayso wax ay ayagu isla ogol yihiin ciidan iyo hay'ado iyo ruulal maxaan ku iraahdaa xeerar ay ayagu isla ogol yihiin oo raalli iskaga yihiin oo waardiisanayaan inta laga gaarayo way joogayaan ciidamadani marka ma laga yaabaa marka waxa aad sheegtay kalsooni darrada inta leeg xitaa ciidamada aanay mustaqbalka dhow bixi karin inay tahay wax un markii si horeysay ku hadlaynay xasiloonida iyo dhanka siyaasadda wallahi horta ciidamada AMISOMta markeedii hore asalka wuxuu ahaa inaanay ka qayb noqonin dalalka dariska ah saddexdan Kenya Ethiopia iyo inay saba ka mid noqonin oo dalalka safka hore ayaa la dhihi jiray ayaga gaar ah xalkooda loo dhigi jiray xoogooday ku yimaadeen meesha aakhirkii waana loo sharciyay sida u yimaadeen dawladihii Soomaalida markaa joogayna way la aqbaleen laakiin anigu mabdiyan waan qabay in kuwan safka hore laga daayo oo kuwa kale meesha laga keeno ciidamo baahida loo qabal nabad ilaalineed iyo kuwan safka hore sida xogaa shidadooda la iskaga ilaalin lahaa arrinta ma dhicin kalsooni darrana way jirtaa haddana waaba la isku adeegsadaaba oo siyaasadda dawladaha soo maray iyo gobolada madaxdeeda soo maray wayba adeegsadaan oo si siyaasi ah u adeegsadaan arrintaas ayadaana dhibaa ka yimi marka waxaan u malaynayaa in haddadan qalaasaha iyo waxa socday iyo siyaasadda la kala xoogaayo waxaa qayb ka ah ciidamahaas sheeyaha oo qaar siyaasiyiinta ka mid ay mar siyaabo kala duwan ugu xisaabtamayaan marka ilaa laga gaaro level maanta hadda markaad dalka Soomaaliyeed qaybo ka mid ah markaad tagto ciidamo shay ma joogaan nabad dad Soomaaliyeed sameeyay ayaa lagu wada joogaa oo waliba si sharaf leh loogu joogaa laakiin haddana politically markii ay noqoto waa macna kale yeelanaysaa oo waxa laga yaabaa inaan markaas siyaasad ahaan la soo imaanaynin oo ay u baahan tahay in si ka duwan loo gorgortamo marka waxaan isleeyahay state buildingka qaybtiisa nuxurka waa qaybta kalsoonida ah kalsoonidaas inta laga helayana xoogaa kale waa nala joogayaan qolihan waad mahadsantahay bursalida haye kama fogi markaad fiirisid Bashir taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee dunida hadday ahaan lahayd qaran hadday ahaan lahayd waaxdan dambe midowga Afrika ama hataa sida meelo qaarkood ka dhacda mishino hawlgallo isku dhafo qaramada midowga Afrika la isku daraba taariikhdooda meel ay guuleysteen weli lagu maayo waxaa dhacda inay iskaba joogaan sida reer Filistiin hadda haysata ama Congo kale jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo haysata inay iska joogaan inay weligood bixin oo ay shaqo u tahay oo mararka qaarkood dalkii aan rabin xataa xoog loo cusboonaysiiyo idankooda kuwa waxaa jira ay xukuumaddu inta la dhixi weyda ay cayro sida kala hore ka dhacday Suudaan oo kale oo sidaas ku baxa ama intay ayagu fashilmaan oo colaad am ay faraha kaga gubtaan
in markaas qaraar uu ka soo baxo golaha in marka laga maarmo marka caqabadaha midoobe amniga golaha amniga intuu ka soo baxo qaraar ay iyagu baxaan sidii ka hor Soomaaliya uga dhacday oo kale waata marka in laga maarmo bursalidow aan ka dhaxgal halkaas in laga maarmo oo ciidamadaasi laga maarmo maxay tahay marka caqabadaha hortaagan ay kula tahay waxay u baahan tahay in dalka ay khusayso haddana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya ay dadka Soomaalida iyo xukuumadooda iyo maamuladooda isku tashadaan oo hay-adihii amniga ahaa dib loo fiiriyo oo ciidanka qaranka la tayeeyo dibna loo dhiso la tayeeyo waxaa loo baahan yahay in aniga saan weligeyba ku doodi jiray Bashir AMISOM ma baxaysaa su-aal taagan ma aha goormay baxaysaa iyo sidee ku baxaysaa baad dadku isweydiiyaan waxaan weligey ku doodi jiray in xilligee baxaysaa aan la dhihinay xaalkee ku baxaysaa la yidhaahdo oo xaalka amni mid siyaasadeed mid dhaqan dhaqaale ee Soomaaliya marka uu tooso oo wax anaga noo cuntama dunida kalena aan ku qancin karno inaan kalsoonideennii soo ceshanay oo aan sharafkeennii karaamadeenii dowladnimo la soo noqono aan iimaan ku qabno dowladnimadeena iyo dhardhaaradeeda sida ay shaqada u kala qaybsadaan isu aaminaan u kala madax bannaan yihiin isu fiirsadaan oo u wada shaqeeyaan aan ku qanacno markaas in siday ku bixi lahayn laga shaqeeyo oo ay noqoto xataa in 50% la bixiyo ay Soomaalidu la wareegto haddana 25 la bixiyo haddana ay Soomaalidu 75 la wareegto ilaa marka dambe Soomaalida 100% ay la wareegto beesha caalamka iyo midowga Afrikana ay ku soo haraan la taliyaal farsamo iyo wax la mid ah waay aad baad u mahadsan tahay marka sida muuqata inta siyaasaddu aanay deganayn oo hanaankan federaalka lagu kala gabanaya la qabiileeyay ee xukuumaddu aanay ka garaabaynin doorashooyinka maamulada qaarkood ay kula degan yihiin oo dadkii qaranka lagu halmaamo shakhsiyaad isfiirsanaya AMISOM waa u shaqo weeyaan dunida waxaa ka dhacday in xataa la laaluusho saraakiisha qaramada midoobay ku midowga in la laaluusho oo ay la shaqeeyaan kooxo kala duwan oo siyaasadda waayahay waad mahadsan tahay bal markaana aynu fursad siino qaar ka mid a dhegeystayaasha oo bal aragtidooda ku aadan waxa sanadkan cusub ay uga dhigan tahay gobolka ama laga fili karaa in la wadaago bismillaah magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga Tago Jaale haddii aan fikirkayga ka dhiibto qodobkan galabta waxaan ku soo koobi lahaa maxaa Soomaalida laga filayaa sanadkan cusub ee 2021 sanadkan waxaa Soomaaliya laga filayaa inay fursadaha dahabiga ah ee seegay sanadkii hore ama sanadadii hore ay ka faa'iideysan doonaan sanadkan in saamileyda siyaasadda ee dalku gaaraan heshiis dhab ah kaasoo wax ka bedela dhibaatooyinka adag ee ay keeneen duruufaha dalka ka jira waxa kale oo aan saadaalinayaa in sanadkan la helo isbedel wax ka bedela mustaqbalka isbedel keena in dhalintu aaminaan dalkooda isbedel wax ka bedela ismaquuninta iyo qaybsiga dalka ka jira isbedel keena wax ka bedelka qori isku dhiibka soo taxnaa tan iyo intii Soomaalidu ay xorriyadda qaadatay waxa kale oo la saadaalinayaa in hogaamiyaasha Soomaalidu ay gaari doonaan isu tanaasul keena ama isu tanaasul meesha ka saara cad yahow ku cunay ama ku ciidee ay isla hortaagan yihiin aad baan idin salaamaya sanadka cusub isagu isdhaqdhaqaajin maaye hadba dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadu waxay ag meeraysanayaan halkay siyaasiyiinta Afrikaanka ay salka u dhigaan siyaasadda waxaan ilaahay ka baryayaa kii Soomaali ay dawladnimadeeda karaamadeeda ku soo noqon lahayd iyo Afrikaanka kaleba waliba Somaliland aqoonsi ku heli lahayd assalaamu calaykum BBC Maxamed Ibrahim oo jooga Muqdisho runtii sanadkan waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay naga dhigo sanad barwaaqo ah oo ummadda Soomaaliyeed barwaaqo u ah qulubtoodana isu keeno heshiis waara oo dhaxmarana ay ka faa'iideystaan meel kasto ay joogaan siyaasiyiintooda iyo mucaaradkoodana gacmaha isqabsadaan maxaafid iyo mucaarad waxaan ilaahay ka baryaynaa ummadda inta xanuunsanna ilaahay caafimaad siiyo inta dhibaato iyo culays haysatana allah ka dulqaado cudurrada iyo aafooyinkana allah naga baxsho sanad barwaaqa oo kheyr qaba allah nooga dhigo 2021 waana mahadsantihiin BBC wacalaykum BBC magacaygu waa Shaafici Cali Warsame ee kasoo fikir dhiibanaya magaalada Cadaado haddaan aragtideeda ka dhiibto dooda Jimcaha ee ku saabsan isbedelka siyaasadeed ee Geeska Afrika 2021 waa mid aad iyo aad muhiim u ah waxaana hal door u ah isbedelka siyaasadeed ee doorashada dalka ee loo dooriri doono 2021 waxaa habboon inay noqoto mid ay ku qanacsan yihiin mucaarad iyo muxaafid ama doorasho xor iyo xalaalana ay ka dhacdo si xalaalana loo soo doorto waxaa kaloo ka mid ah amniga ee wax laga bedelo sidan uu yahay ee ciidamada loo adeegsado dalka u dhashay kuwa AMISOMna laga saaro gacanta ku
gacankuhayntana lagu wareejiyay ciidamada dalka Soomaaliya. Dhaqaaluhuna waxay u baahan yihiin in la kabo maadaama uu dalka u hareeyay sanadkan 2020 ee aan soo dhaafna corona ee dhaqaalihii uu hoos u dhigay. Waxaa habboon in kor loo qaado amniga iyo maaliyadda dalka. Assalaamu calaykum BBC Soomaali, magacaygu waa Soomaali oo joogta Boosaaso. aad baan ugu mahadcelinayaa dhageystayaasha iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka BBC ee galabta. waxay la tahay sanadka cusub ee 2021 ay maanta tahay 1 Janaayo 2021. waxaa rajaynayaa inuu noqdo sanadkii ay Soomaali israaci lahayd, sanad bashbash iyo barwaaqo noogu dhamaaday. ayaan rajaynayaa inuu sanadka noo noqdo. sidoo kale dhinaca siyaasadda iyo ammaanka waxaan rajaynayaa sanadka 2021 inuu isbedel weyn ka dhaco, gaar ahaan dhinaca siyaasadda uu sanadkan cusub dhaco doorashadii madaxweynaha iyo jagooyinka kale ee sida xildhibaanada iyo aqalada kale ee baarlamaanka. waxaan rajaynayaa 2021 in isbedel muuqdo dhinaca ammaanka uu ka dhaco. anoo rajaynayaa ciidan xoog leh Soomaaliya gebi ahaanba ammaanka la wareega in loo dhiso, ciidamada hadda jooga Afrikaankana ay naga baxaan. waa tahay qaar ka mid ah dhageystayaashan ay ahaayeen oo dhanka Facebook ay noogu reebay araahdooda. isla su-aasha ugu dambeysa haddii aan kasii ambaqaado, Cabdihabow, mar haddii ciidamadii Mareykanka ay waddanka ka baxayaan, la isweydiinayna sidee noqon karta xaaladda amni ee Soomaaliya maadaama ciidamadii Mareykanka ay aad ugu tiirsanaayeen kuwa Soomaalida ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. isleedahay ciidamadii Mareykanka iyo ka bixitaankooda waa laga shalay doonaa? horta walaal waxa weeyaan AMISOM ayaan xeer ku noqonayaa. AMISOM Soomaaliya muddo 10 sano ka badan ay joogtaa, 2007 ilaa hadda. runtii mashruucan waxa ay ila tahay mashruuc waxa way fashilmi weeyaan oo macnaha fashil ku dhamaaday. inta badan waxa lagu eedeeyaa yani inay dil geysteen, inay yani kufsi geysteen, inay barakicin geysteen, hataa lagu eedeeyaa. marka waa sidoo Dr. Ibrahim uu sheegay, wadamada macnaha inta badan yani waxa weeyaan nabadgelyo loo keeno yani danahooda ay fiirsadaan, sida hadda Congo ka waxa ka dhacay soo sheegay Falastiiniinta waxa qabsaday. marka waxa ila fiican dadka Soomaalida ee maanta hoggaanka haya inay taa ka fikiraan. markaad ka soo qaadid wadanka Liibiya ninka la yiraahdo Siraj, يعني إذا لو هريرستين هاي ومنا يعني الحريري مجال تريبولي أيه wuxuu ka degay wada Ankara ka degay bilateral agreement wala sameeyay iyadoo waliba yani uu saaran yahay yani waxa weeyaan embargo wax la yiraahdo ama yani cunaqabateyn xukubku saaran yahay. يعني isla markii waxa dhacday marka maanta in Tripoli laga saaray ciidankii Xaftar ee soo duulay. marka waxaan leenahay nin rag ah oo xiniye leh oo ninka oo kala leenahay oo meesha yani warba ka la sheekaysan siyaasadda Soomaalida waxay ku leeyihiin oo aniga maar Turkey bilateral agreement wala samaysan lahayn laakiin Mareykanka ka cabsanaa ku leeyahay, Ingiriiska ka cabsanaa ku leeyahay. markii meesha taagan ururada dalma ku burburo dadka intellectualist ay badbaadiya, dadka intellectualist ay dal badbaadiya, bulshada ma badbaadiya. islatan ciidamada Mareykanka u soo laabanay, ciidanka Mareykanka ku soo noqonaya. ciidanka Mareykanku waxay tababarayeen ilaa dad gaarayo يعني وحويان يعني إلا 700 إلا 700 لو قياساي إذن حق لي توبرين. لكن أنا إذا كان يكون توبرين إذا حق ده توبرين هاي نفتي كذا يعني تعديات حق بنادك بحث الجيست مدن ودك الجوجين يعني وحوي برونز كله حجراعين بتصير الصومالي حب قرب سنة جراعين ما هم نعدها بجراعين وحياة بيجيست ليس ولا ليس ما لكن حقيقة ما هنا تاس وحكى هذا إنه حويان وكليا وحق قري أمس بس لا قريسة يعني يعني كله ده قريان في هي ما رأيت وجاية قريسة وحتى قرصان ما بانتايده بدك لو حويان إن حدي مركا يكبحان وإن مركا أي بدلان إذا كالصومالي ده إن بدلان مش ده وإذا كالصومالي وإن حكومة الصومالي كل يرتاح إن أنا وحويان ودن كمية ودمدا يعني يستحقي أما أمريكا هدوربه أما إنجليز هدوربه أما تركيا هدوربه لا تلاقي بدل ساعات أو مركا إذا كان بدلان أو مركا إذا كالصومالي ده إذا أي بدلان مدك له وحويان دتك يعني وحوي إذا مدى كجوجان وش شيء دكتور فيره ولا بدل صفقة ترى بدل بي الصومالي كليين ما أنت حتى واحد الصومالي اللي عايز يسوون هذا قيب كيين مركا إن دتك الصومالي كلهم حلو باي مركا البحان ومعنا وحوي الدوق إلى جان قاضان إن أفريقيا US African Command نفتكر way قرتين إن إذا تسافرين أنا يجرين way قرتين وواحد يعني عدين له رادنا باهن لكن وحنا لو كل شيء يا dadka Soomaalida siyaasadda ka go'da dalka ay badbaadiyaan ay ka go'da in macna waxa weeye ay fakiraan ila sadda mashruuc haduu dumo oo baaba oo macna baaliyo haaq fadhinin fakir ya confidence zone ka bax
raadi wax cusub raadi waad mahadsantahay aad baad u mahadsantahay intaasayna kaga gudbinayna arrimihii dhanka ammaanka haddiinu marka doctor afyare dib u yara jallecino dhanka xasiloonida siyaasadeed ee waddanka ama gobolka sanadkan cusub bal ka waran rajada laga qabo inay wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ay dib u bilowdaan oo ay maradhalaan sanadkan waad mahadsantahay horta way isku xiran yihiin waan la qabaa odayaasha doodaas runtii ah ammaanka iyo muhiimadda la siinayo iyo siyaasadda xasiloonidoodu way isku xiran tahay dalkan Soomaaliya iyo dalal fara badan ciidan xoog laha burburiyay marka yani xataa marka muhiimadda maaha marka ku daawoobi maayo marka ciidan kale xoog laha la dhiso marka qof xoog lahoon sharci celin oon xeer celin oo wuxuu rabo sameynaya haddii de uu xal yahay markii hore uu xal noqon lahaayo waa lagu badbaadi lahaa marka aniga ma qababa xoogga in keliya la saaro ciidankaas ama Soomaali ha ahaado ama dawlad kale oo saaxiib la leeyahay ha laga keeno sideedaba ciidan oo nin xoog loo rabo inuu wax xoog ku maquuliyo waa waxa uu jiri karaa waqti kooban waxa la rabaa dhinaca siyaasadda iyo democratic space-ka iyo isku dulqaadashada iyo dooda iyo maaragtay xukunku inuu shacabka gacantiisa ku jiro oo maalinba qofkii wax ay ka qaadan karaan ka gada loo codeyn karo nidaamka democratic state buildingka waa waxa la raadinaa ma ahane askari qori wata oo ordaya ma aha waxa la raadinaa waayahay marka tan Somaliland aanu soo laabanay tan waxay ku dhisan tahay xasiloonidaasna waxay ku dhisan tahay in ummadda markaa wax ka dhaxeeyaan ay wax isla aqbasho arrinta Soomaaliya iyo Somaliland waa arrin oo aad u culus oo maba isku meelba isku baaradaynba kuma jiraan isku hawo kuma jiraan Somaliland waxay leedahay waxaan rabnaa inaan gaar u istaagno Soomaaliyana waxay leedahay Somali Republic of 1960 lama taaftaan waaye waa muqaddas waaye marka weliba doodaas ilaa hadda intii jeer ay kulmeen miiskaba lama soo saarin waxaan loo joogin oo kale iyo howlo kale lagu mashquulsanaa iyo warhayd maxaan fadhiga uga kacnaa iyo wax noocaas oo kale doodaasi weli ma bilaaban isla halkaa uun doctor afyare isla halkaa iyo doodaas iyo in boogta la taabto oo arrinta rasmiga laga wada hadlo maxaa caqabada hortaagan dad badan waxay isweydiinayaan inta badan sidaa sheegtayba lagama wada hadlo arrinta dhabta ah ee meesha taagan ee ah ama kala go-a ama midnimada marka maxay tahay caqabada rasmiga ah hortaagan in arrintaas laisla eego ama laisla ogolaado ama laisla diidaya waxaan weydiiyey hadda ka hor dadka dhexdhexaadinaya qayb ka mid a ayaan su-aashaas weydiiyey wax jawaab oo muuqato oo aan cid walbana og tahay ii sheegeen oo ah inta Soomaaliyada inta xamar ay kala daadsan tahay arrinkan waxba lagama qaban karo marka xamar iyo guud ahaan yani cid shacabka Soomaaliyeed ay doorteen oo tala qaadi karta oo nimanka yani la gorgortami karta oo wuxuun la samayn karta inta laga helayo arrintan ayada ah waa la rhetoric dhaami karaayo qolada timaada qoladii kale waa ka duwanaan karta ama stateka waxa stateka maaragtay aaladaha stateka uu leeyahay waa laysu isticmaali karaa heeran deer laakiin xaqiiqada markaa rabtid ilaa wax macno leh oo dalka xukuma oo ayagu isku tiirsan ay ka yimaadaan xamar ma suurtoobayso in oo hargeysa go-aan lala gaaro hargeysana iskama tegi karto oo hadda haddii wax gacanteeda ugu jiraan mar hore iska tegi lahayd marka runta markaa rabtid waa arrin aad iyo aad muhiim u ah laakiin aan weli xitaa intellectualiska iyo dadka maaragtay oo cilmi baarayaalka xataa aysan si dhaba uga wada hadlin wax kalena maana xasaasiyadaas guud la iska ilaaliyaayo waxaa la yidhaahdaa war waxaan bal ilaa waqtigeeda laga gaarayo hala iska sugo anigu kolley dhowr jeer aan hore hadda uga hadlayo oo dhaliilay iyo howlo badan oo kalena ay ka yimaadeen laakiin waan qabaa in si cad oo furan looga doodo arrintaas ayada ahna dawladda hadda jirta 2020 waxayba dhammaanaysaaba inta xukuumad la dhisayo iyo inta wax la samaynayo inta la iska daba wareegayo inta doorasho la galayo iyo marka ay ciddii timaado ayay noqon doontaa marka arrintaas ayada cabaar ay qaadanaysa waa tahay bursaliid bal ka waran dhankaaga misleedahay arrintan imika uu ka dhawaajiyay doctor afyare waa mid macquul oo meesha ku jirta
ustaad bashiir aan sii sababee dagaalada marka la xalinayo hadday yihiin kuwo dal gudihiisa ama laba dal ama ka badanba waa in sababta dhabta ee la isku dagaalay la wajaho caadiyana dagaalka soomaalida 30 sano soo dhaaf hadduu ahaan lahaa mid muqdisho hargeysa u dhexeeya siyaasadeed ama ka horba wuxuu ku bilowday gacan ka hadal militariya iyo jabhadeyn iyo haddii ahaan lahayd xukuumadda muqdisho iyo maamul goboleedada iyo haddii ahaan lahayd si guudba qabaa'ilka soomaalida kalsoonidii luntay soo celinteedii dadaaladii loo galay ilaa iyo haddaba xoogga la saaraa in hay-adaha dawliga iyo nooca dastuur lagu wada mashquulsan yahay min hargeysa ilaa muqdisho ilaa meel kasta oo aan marnana waxa la kala aaminsan yahay iyo wixii la isku dilay diruurta ay ka timid aan la wajahayn sidaas daraaddeedna sida doctor afyaraba uu afka ugu ballaariyey ilaa la isla taabto meesha ay sarta ka furantay ee ah si dhaba waxa la isyeelay iyo weli waxa la kala aaminsan yahay lana xalliyo looma bixi karo waxyaabaha haddaan ka hadlay noo ahayd in laga hadlo markii dagaaladu ay dhammaadaan oo laga heshiiyey iska xaalmariyey kadibna wixii la wada noqon dagaalada kadib in laga wada hadlo waa tahay si kale markaan u dhigo waxaad moodaa in soomaalida hoggaankeeda kala duwan hadday ahaan lahayd xukuumad dhexe hadday ahaan lahayd maamul gooni isu taag u dagaalamaya hadday ahaan lahayd maamul goboleedo xataa bulshada rayidka waxaad moodaa qof kasta muddo xileedkiisa inuu mashquul ku yahay meeshuu noo khaadimi lahaa siduu kale kusoo noqon lahaa inuu ka shaqeeyo maalinta ugu horeyso xafiiska oo in hargeysa wada hadal dhab lala galo ama hargeysa laftigeeda ay muqdisho wada hadal dhab la gasho jamhuuriyaddii loo tashadaa aana dadka wax weyn lahayn oo ay wax weyn la tahay qofku inuu asagu meesha joogo qaabku kusoo noqon lahaa adeegyada looga fadhiya xataa qaarkood markaas inay sidaas ku lumaan waa tahay waayahay cabdiwahaab haye aragtidaada ku aadan qodobkaasi maxay tahay horta waxaan u malaynayaa markii dib loo eego sanadii 1960 nidaamkan micnaha Soomaali weynka wuxuu ku dhashay Somaliland ayuu ka bilowday xilliga Ingiriiskana runtii sida ku caad yani waxyaabaha rekoorka hadda inta qoran in maarta ay tahay inay doonayeen inay Soomaaliya micnaha ay limidoodaan oo micnaha yani unionka ay sameeyeen waxyaabaha heshiiska kula galeen bay kamid waddanka Ingiriiska laakiin waxaa muhiim ah waddanka Eritrea markuu go'ayay waxaa raalli ka ahaa Ethiopia inteeda kale way wada hadleen waxay ku heshiiyeen marka Eritrea inay go'do oo marka xornimo ay hesho South Sudan la mid weeyaan South Sudan markay go'aysay ayadana waxa weeyaan Suudaanta kale way wada hadleen markii la saxay comprehensive peace agreement lagu saxay magaalada Machakos lagu saxay oo goobjoog ka ahaa waxyaabaha runtii lagu heshiiyey oo South Sudan wafdi ka socday wuxuu ogolaaday in koonfurta Sudan ay go'do marka maxaa kala teeda marka hadii nimankan ay doonayaan inay go'aan maxay walaalood u fadhiisan laayeen oo macnaha waxa weeyaan ay u qancin laayeen mashruuc ay wataan waxa weeye afar arrimood weeyaan waxa mashruuc ay wataan ay u qancin laayeen afar arrimood weeyaan mid waxa weeyaan dad badan oo waxa jira oo unionist ah oo ay ku dhex jiro sida yani gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sida yani gobolka Sanaag sida gobolka Awdal dad badan waxa laga helay unionist leeyahay mid taa weeyaan tan labaad waxa weeyaan waa inuu vision aan jirin oo macnaha waxa way ku qancin karaan koonfurta in macnaha yani ay fasaxaan oo markaasi waxa loo afkula qaloo yaqaano peaceful divorce ay marka ay ku sameeyaan sida wadamada kale ay sameeyaan waxa kaloo inna muhiim ah in la xusumo waxa weeyaan wadamadii xataa ka go'ay ama Ethiopia ka go'ay ama Suudaan ka go'ay taariikhdooda ma fiicna marka tusaale ka soo qaato wadanka Suudaan intiisa ka ayuu ka go'ay marka dadka xornimadii marka ay ku taamayeen ma helaan nuwer idinga ayaa iska dilay 300 kun oo qof iska dileen 4 milyan oo ruux ayaa barakacay oo qaar mana refugee ay ku yihiin gudaha qaadada dibadda ay refugee ku yihiin si marka boqolkun bay iska dileen marka waxa loo baahan yahay waxyaabo badan baa jira oo loo baahan marka labada qol inay ka wada hadlaan waxaa kaloo xusid badan inuu muhiim ah يعني فكرتان Soomaali weyn waxay ka imaaday gobolada waqooyi ka imaaday waa riyooyinkii ay lahaayeen aabayaashu dooyaan marka riyo aabaha u lahaa inaad adiga yani andamayn ku samaysan waa laga fiican yahay oo macnaha gacan bidixaysid waa laga fiican yahay marka sida kaliya ay habboon waxa weeyaan in macnaha waxa weeyaa ayna noqonin mashruuc Ingiriis kale oo aysan noqonin oo meel ay ka baxaan oo marka ay soo arkaan dad inay Soomaaliya macnaha waxa weeye ay xukumi karaan oo hatta caasimada Soomaaliya la keeno oo hatta macnaha baarlamaanka Soomaaliya la keeno ayaga hadii in la yiraahdo ninkan xukuma
إذا كان حكومة قاطع سؤال إذا ما كينين حتى أنا إذا كينبا برلمان كان قاطع مدحويني قاطع برايم منستر كودر سبا حتى وزير كل قاطع الحكومة واتاي هو يكون فعله كونفورتين يقولان مالك waayahay aad baad u mahadsantahay horaan usii soconaynaa waxyaabaha kale gobolka ka taagan waxaa ka mid ah xiisada diblomaasiyadeed u dhexeysa wadamada Kenya iyo Soomaaliya marka aan ku sii raacsan adiga maxaa sanadka laga fili karaa bay kula tahay mid kale ururada gobolka sida Midowga Afrika iyo IGAD kula tahay in ay u xubsiiban karaan xal u helida mushkiladda taagan ana iradaysa Cabduhaab ku jeeda horta walaal waxa weeyaan waxa ayaan dara ah in markii macnaha Soomaaliya xiriirka u jirtay wadanka Kenya in xukuumadda Kenya iyo xukuumadda Soomaaliya waa runtii xukuumadda way ka aamustay maadaama ay sameeyeen yani official communication waxa afka lagu yaqaano oo yani si rasmi ah soo keenin way ka aamustay marka waxay doonaysaa marka waxa weeyaan election ka bacdina yani runtii ay ka soo saarto falcilin inta ka horeysa ay ka aamustay hoos u dhigtay doonaysaa laakiin waxa xusid badan maartay in labada wadama macnaha runtii ay waxa ka soo yeeray aysan dhawaaq fiicnayn oo ay ku celiyeen macnaha gobolka ay ku celiyeen 1960 ay ku celiyeen kuwana ay leeyihiin yani maabka Jubbaland ay soo saarayaan kuwana ay leeyihiin maartay yani afkida laga qaaday 62 ayaan ay soo saarin ay ku hayaan marka loo baara marka in hore loo socdo in gadaal loo socdo ay moodaysaa marka waxa rabaa marka labada wadama inay muujiyaan taageero inay muujiyaan waa labada wadama xaalad bishibkooda waxa integration badan ka dhacay dana badan ka dhaxeeya inay taa fiiriyaan ba loo baahay marka hore socdo waayahay Cabduhaab waad mahadsan tahay Bursaliid misleedahay ururada gobolka sida IGAD iyo Midowga Afrika iyo waa ku u xubsiiban kara xal welida mushkiladda ee ka taagan labada wadan sanadkan Bashiro isku day fiican ba shirkii Djibouti ee ka soo bilowday ilaa wafdi in la soo diro bal xaqiiq raadin ah had moodaa kale in laga xishooday jaqjaqdoodii in la dhageysto oo la yiri bal hoos baan u dhaqaynayaan hataa warmurtiyeedkii kasbaxay madaxda IGAD meesha joogta ay ka xishoodeen in lagu qoro wixii la isku hayay marka la fiiriyo foolxumadooda waxaad moodaa in meesha ay ka soo baxday in Kenyaatigu ay ka badbadinayaan Soomaalidana ay si talaxumo u hayso laakiin sida Cabduhaab sheegay waxa labada dal iyo labada dad ka dhaxeeya waliba xilli Kenyana aan dimuqraadiyadeedii wax ka soo noqdeen oo ay doorasho diyaar garoobeysa 2022 dhexdoodana ay hayaan Soomaalidana ay 38 cisho gudahood ilaahay idinka doorasho diyaar garoobay inaanay ahayn xilli dagaal hor leh oo diblomaasiyadeed la furaa waxaan aad ugu rajaweynahay marka laga yimaado Midowga Afrika iyo in hataa hogaamiyaasha Soomaalidu ay ku qanci doonaan in Soomaalida tintooda meel u xiran Soomaalida tintooda meel u xiranto si qurux badanna si diblomaasiyadeed loo xallin doono haddii aan la xallinin oo berida ma aysan noqonin hataa la rahmi karo hoos loo wada leanna Soomaaliyada hadda joogtana waa Soomaaliya soo kobcaysa Kenya hadda joogtana waa Kenya sii kobcaysa marka midkoodna midka kale kuma qamaari karo haddii aanay ku baraarugsanayna maanta aniga hay dhegeysta waaya Dr. Afriyare waad maqlaysaa ma kula tahay adigu sanadkan in arrimaha taagan oo arrintaas ay ka mid tahay waxyaabo badan ay ku hoos jiraan oo ay ka mid tahay arrintii badii waxaas oo dhan in si un xal sanadkan looga gaari karo horta IGAD ma xallin karto mushkilada hadda Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxaysa mana u samaysna shaqadeedana ma aha marka horta taas waa mid waxa la fiirinaa mar waa sax sida ay u sheegeen asxaabteeda yani in ay dana badan ka dhaxeeyaan in masaalix fara badan ay labada dal ka dhaxeeyaan waxa sidaas oo kale ka dhaxeeya dalalka labada dal arrimo waaweyn oo runtii u baahan diblomaasiyo iyo maaragtay arbitration caalami ah oo ay baddu ka mid tahay Soomaaliya badda waxay geysay maxkamada ay geysay Kenyana waxay rabtaa maxkamadda in laga soo celiyo marka nuxurka hadda khilaafkan waxa dalaas gareynaa marka la fiiriyo waa meeshaas ayada Soomaaliya dawlad joogta qofka ama tan joogta ha noqoto ama tu iman doonta ha noqoto qolo ku dhacda inay ka soo saarto kiiska maxkamadda ma jirto Kenyana wax uga sokeeya in kiiska maxkamadda laga soo saaro oo banaanka lagula hadlo ma jiraan marka stakesku markay sidaas oo kale yihiin way dhib badan tahay marka Kenya waxay isticmaalaysaa dhammaan leverageska ay haysato marka leverage waxa la yiraahdaa waxyaalaha ayaga kaararka ay haystaana marka waxaa kamid ah qaxootiga waxaa kamid ah ganacsatada waxaa kamid ah aqoonsiga Somaliland waxaa kamid ah Juba corridor waxaasoo dhan baa kamid ah ay rabaan inay u adeegsadaan inay Soomaaliya ku pressure gareeyaan si ay kiiska uga soo saaraan badda
farmaajona ma samayn karo runta marka loo hadlo marka arrintaas ayada waa arrin weyn oo muhiima laakiin haddana waxaa iyadana meesha taalla dowladdeena burbursan ee xamar darteed foreign policyga qaabka ay u wajahdo ama gobolka ha ahaato ama gobolka kasii dambayse yaa iyada laftirkeedu iska howtulhamaga oo aan ku dhisnayn cilmi ku dhisnayn mararka qaar masaalix ku dhisnayn mabaadi ku dhisnayn oo ku dhisan maaragtay xoogaa laablakac ama mararka qaarkoodba electioneerinka ama doorashada waxyaalahan hadda maxaa la dhahaa hadafyada dhow ah marka dhinacaas waa runtii eed dowladda qabata oo dowladda soomaalida loo jeedin karo laakiin waxyaalaha waaweyn oo Kenya iyo Soomaaliya dhex yaala dee laguma eedeyn karo ayaga inay maaragtay ay wax ka bedelaan waayahay wadamada reer galbeedka gaar ahaan wadanka Mareykanka oo aynu ognahay imika in isbedel siyaasadeed uu ka dhacay labada dhinacna aad u taageero haddii ay ahaan lahayd dhanka ammaanka ma las dhihi karaa waxbaa kaga aadan arrintan labada wadan isku hayaan waa run waa la dhihi karaa oo waxa dhacday oon aniga ogahay diblomaasiyiinta qaar waan arkay Mareykanka positionkiisa wuxuu ahaa in ay Soomaaliya ka soo saarto case-ka oo ay banaanka lagu xaliyo Mareykankana ay garantar ka noqdaan arrinta laakiin European Unionka iyo kuwan kale waxay qabaan in maxkamadda lagu kala baxo oo ayagu waxay leeyihiin haddii xataa qola ka soo saarto qoladii kale ku celinaysa hadhowti marka waxaa fiican case-kan in si sharci ah hal mar loo xasiliyo marka doodahaas xataa international community-ga dhexdeeda ka jiraan laakiin in Biden oo imaanayo qolyahan democratska imaanayaan runtii Africa oo dhan bay waxay u tahay fursad u tahay ninkii odagahayo Trump yahayo meesha joogay Africa ma waqtigii 4 sano carrada joogay maabkana magac kale u yaqiinay marka waxaan u maleynayaa in xoogaa isbedel oo ka imaan doono siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika iyo gaar ahaan gobolka iyo Soomaaliyaba waayahay Cabdiwahaab maxay kula tahay adigu doorka Mareykanka kaga aadan arrintan xal u helida runtii waxaa moodaa wadanka Mareykanka dana badan inuu ka leeyahay Soomaaliya geeska guud ahaan laba arrimood runtii waxa weeye inuu nabadayana waa uu ku qasban yahay maxaa yeelay adduunka hadda wuu isbedelaya China ayaa runtii Afrikada suugaxo ku soo galaysa xawli ku soo galaysa oo dhaqaale badan oo wata yani mashaariic horumarineed fara badan oo wata oo raqiis oo macnaha waxa weeyaan runtii aad iyo aad u jaban marka tii haddii marka uu nabadayo Soomaaliya uu midawayo Soomaaliya waxa runtii la oran karayaa yani Mareykanku macnaha waxa weeyaan yani gobolka waxa weeyaan waa lagu xog badan doonaa marka xukuumadan hadda uu sameeyay maamulka hadda dhismayo Joe Biden iyo Kamala Harris waxaa loogu fadhiyaa maartay in runtii hab ka duwan habkii Soomaaliya ku wajaheen yani maamulkii Obama iyo kii macnaha waxa weeyaan ugu dambeeyay Trump mid ka duwan inay la yimaadaan oo marka yani Soomaaliya marka ay yani ula xiriiraan si positive maartay si Soomaaliya marka waxa weeye cageeda ay isugu taagto maxaa yeelay Soomaaliya oo midaysan oo xoog leh waxay qayb ka tahay amniga gobolka ay qayb ka tahay waxay qayb ka tahay in danaha wadanka Mareykanka macnaha ay si markaas waad mahadsan tahay dhamaantiin waxaan idin siinayaa min soddon ilbiraqsi sida idinla muuqato ugu dambeyntii mustaqbalka dhow ee kan fog ee gobolka aragtidiina min soddon ilbiraqsi bursilid haye bashir say la tahay aniga waxaan ii muuqata sanadkan inuu yahay sanadkii Soomaaliya ilaahay idinkii 2021 iyo sanadkii gobolka aan u baahanahay dadka ku abtirsada isirka Soomaalida inaan ilaahay u noqono iimaansano waxa yare aan haysano iskuna tashano sidaas loo gaarana waa inaan ka bilownaa in doorashada u soo horeysa aan u tashano turxaan bixino si xora oo xalaal oo nabadna ay noogu dhacdo kadibna xukuumaddan noqotay mid kale bedesho noqotay annaga aan noqonay in waxyaabaha masiiriga dadka horiyaala sida dastuurka amniga dalbiskeena xoog waad mahadsantahay bursilid waayahay bursilid waad mahadsantahay Cabdiwahaab haye soddon ilbirqsi iyo waxa uu kula muuqdo mustaqbalka fog ee kan dhow ee gobolka Soomaaliya ku bilaabaya waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo baraara ah oo nabad ku naalootay inaan arkaa 2021 Soomaaliya oo dadka politicianka isu tanaazuleen ragga maanta ibka ku shiraya garoobe oo runtii rag macnaha kariimka Soomaalida ahaa iyo xukuumadda
inay wada fadhiistaan oo macnaha waxa weeyaan si Soomaalinimo ah islaamnimo ah wadaniyad ah ay wada hadlaan oo waxyaabaha iyo runtii ka tabanayo meesha ka bixiyaan niman macnaha integrity leh oo sharaf leh oo macnaha doorashada maamulaya inkastoo rag badan oo doorashada maamulaya dad wanaagsan ay yihiin Soomaaliya oo madaysan rajaynaa waayahay aad baad u mahadsantahay afyar cilmi 30 ilbirqsi wax ka yar iyo mustaqbalka waxa kula muuqda gobolka wallahi horta gobolku waa iska isgargarayn doonaa laakiin aniga Soomaaliya isleeyahay hadda dhibkii soo maray marka la fiiriyo inay hadda rajab badan muuqato gaar ahaan dhinaca siyaasadda furfurnaanta wada hadalka maaragtay xogaa in xirfad oo la xiriirta dhinaca maaragtay nabad dhiska iyo dimuqraadiyadda iyo waxay ka soo muuqdaan rajo noocaas ay muuqata dhalinyaro badan ay muuqata dhalinyaradu way codeeyaan yani markaad fiiriso waayahay afyar aad baad u mahadsan tahay dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinayaa dhegeystayaal intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dooda jimcaha ee maanta aynu ku eegeynay waxa sanadka laga filin karo gobolka geeska afrika waxaa nagala qaybgelaya cabdiwahaab sheekh cabdisamed bursaliid oo dhammaantood jooga nairobi iyo weliba afyar cilmi oo ku sugan magaalada duxa ee waddanka qatar idinkuna aad baad u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin dhegeysiga intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo bashiir maxamed caataha waxaa isku soo dubariday axmed mursal tan iyo toddobaadka dambe oo dhammaanteed oo isku duubanaydin leh sidaas iyo nabadgelyo